tahay halka Soomaaliya afari nusafadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay no waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay khiyaari weydin salaamay waa ka qaadnay salaan kadib war baan idin hayaa shirkii dhabu heshiinta loo magacaabay oo wasaaradda arrimaha guduhu soo qaban qaabiso 3 bari socday maanta ra'iisul wasaare khayra soo xiray xagaa lagu soo xiray war si ay dhiduna barafar bay ku taallaa allah idin caafiye meeshii lagu furay ayaa lagu xiray waxaana la isku afgartay oo meesha laga cadeeyay cudurka Soomaalidu qabtaa inuu qabiyaalad yahay in la iska dhaafana waa lagu heshii laakiin waxaan leeyahay Soomaali qabyaaladi ka suushay malaha qiyaamihii joogta waxaan dhihi lahaa qandadaas aniga qatarteeda aqaan oo qarin maayo xanuunkee weydiin qeexahayaaye waa midaan ku qasaarniyo cadowgii qarankeenne wax qabyaalada weeyo qalbigeenna ka mayra isagaa shir qabtay qarafaan ma haya ilaahay raxmadiis malku guursadow wanimay waxa ma ogid in qarafaanka ku xasuustay wasiir cabdi sabriye adeerkiis wuxuu yiri Soomaali qabyaalad ka dhaq dudul ciid ka dhaq war aniguna waxaan dhihi lahaa dhab inaan u heshiino haddii gobasha loo dhigay dhawaaq farax la weeye ilaahow ka dhabe lankii huro hataa heliyaane lankii huro unataa heliyaane anigu waxaan dhihi lahaa shirka dhabu heshiisiinta maanta la soo xiray ha laga dhabeeyo qofkii ay dhiibayso waa dhuume dhabu heshiinta soo dhowey dhibaataanooma dhimaane dhabu heshiinta soo dhowey haye war dhab hadaa u heshiiseen i'tiraaf dhaba Soomaaliland hala siiyo liyo waa inaan dhamaanteen dhabu heshiinaa marka hore waxaan farayaa wasaaradda arrimaha gudaha inay qaban qaabiso duca qaran shirka hanaanka dhabu heshiintana waa noo xiran yahay war adeerow dadkii soo boqo dhintimay loo duceynaya haddii la soo xiro shirka dhabu heshiisiinta colaadi ma naloo furay he ducee Sheikh Soomaaliyeedo ducee array kuwaas duca ka dheefi maysid ayaysan lafahaaga ku qarxinin wariyaa culimadu dadka inay u duceyso quraan u akhrisaa la rabaa hana ku macnayna culimada falalkaas qabyaaladeen qaribte quraan miya idin qaba qabyaaladeen qaribte quraan miya idin qaba haye anna waxaan idin idhi qabiil loo dagaalamo wax yimiya ku soo degay dumarkii caruuraha doctorada iyo culimada duubkii aftaamada duqowdiyo ciroolaha dadka birimageydada hawlyari u dilayo daliilkeedu haysan wariyo maxaa la taahaysa wanimay war ma haysan dawladda Soomaaliya waxay tiri waxaan soo dhaweynaynaa Muuse Bixi inuu wada shaqayntii aqbalay war ma haysidee dawladdan walaalaha in Itoobiya ee Abiy Ahmed uu diiga ka yahay waxayna heshiisiinaysaa qoladan aan jaarka nahay oo in badan aan isku marnayn marka wax wada shaqayn naga dhaxaynaysa ma jirtee اعتراف ملك دوننا inay si degdeg ah noo siiyaan war oomadan wasiir maareeyo soo daldalayo naga cishada haddaan wada shaqeyn ogolayn war ma haysaan madaxweyne farmaajo waa soo laabtay ma sheeniya widaayay war Soomaaliland ma keenay war Bujumbura Djibouti ka yimid dhageyso warkayga madaxweyne Ismaaciil Omar Geelle 2 saacadood qol isu xirteena la yiri ma feertamayeen feerkaya ku badshahe iyo waa warantamayeen u koro war naga dhageysa dad maranaatihiina shirkaas 2 saacadood qaatay waxaan u malaynayaa Abiy Ahmed wuxuu farmaajo u sheegay wax ka duwan in Ismaaciil u sheegay war ma ahayna wuxuu diidinaa inuu la kulmo Muuse Bixi war ma sidaasa in rabbi idin ku baraysa maxaa Muuse Bixi ugu cidlaysan Addis Ababa uu odaygu Djibouti uga soo laabtay qowdhana waxaan ku sheegayaa Soomaalidu waa ka gudubtay in Itoobiya wada hadashido Addis Ababa la isugu tago marka Muuse Bixi iyo farmaajo ay wada hadlayaan shirku waa inuu ka dhaco afgooya ama gibiley ama arabsiya ama garac lagu dhal ama xawaadley ama jambaluul war Itoobiya waa Abasiiniya waana walaalahay maxaa ku diidaysan هي ولا الكورابه دل وقت مقربه ورسومالنا waxay leedahay khilaafkeena fagaaro caalami ah waa in lagu xalliyaa marka balcadina ay ogolaanayso in lagu shiro ma filaayo war waxa la yiri qof weyn oo qarash hayso noloshii ka qasnayn hadii uu qosli waayo qayaanu la buka
warnimada waxaan idin sheegayaa bajaashadii balaayaa u soo gashay ciidanku horey bay ka tooganayaan kii u dambeeyey maanta banaadir bay ku hor toogteen shacabka inta hartayna al-shabaab baa luuq u taagan bajaajley ayaduba seed ma laho midigtay kaa baaseen hadday doonaan aryaa midigtuu iga baasay miyaa dad lagu dila meel xun ka dhace warwar maysina koonfur afrika dadka soomaaliyeed qurji baa looga dhigay saddexdii habeeneen u dambaysayna 7 qof aa lagu dilay safaaraddu ma ogtaa arrintaas war qoladiinna soomaalidii waa cid walba u jabaan noqoteen war dagonkaguna war mooshiidii safaaradaha soomaalida oo dibidee ka shaqeeyaan dadka aamayangma halintona mongobadaan dufka bohoyingu warnimada horta aniga waxaan la yaabaa soomaalida inta ugu damiirka xun miyaa horta safiira laga dhigaa yaa adiga kaa dameer xun mid xumoo cadala rara jirtee warnimada aniguna waxaan la yaabanahay iskoolada ardada ka dhacda iyo kuwa derbijiifka iyo caasi waalidiinka guryaha laga soo cershay miyaa askar laga dhigaa waa maxay waxaan dadka leynaya war saddexda nuuc oo aad sheegtay waa kuwa shabaabku ciidanka ka dhigtaan oo dadka baabah ka dhigay Soomaaliyeed bow kuwa siiyamiya warnimiya maysiinka la yaabana askari 4 bilood mushaarjay moganya guri ijaar linka dhaganya may dambiilan ku weelan hinaaga la ka hayna war wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya korontadii ka dansan baa la yiri marka maxaad u la yaabaysaa safiiradu inay ka qaraabtaan dadka Soomaalida dibadda ku dhibaataysan war adeero wasiirka arrimaha dibadda beena ka sheegin xiisadda Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxayso ku mashquulsan yahay raana hadda ka hor waxa la yiri wiilkaagu waa tuug aasay tiri iga arkaygu tuug maahna xabad uusan haysan war islaana ninkeedu waxay ku tiri haddaan ogahay inaad sidaan faqiir u tahay kuma guursadeen markaas wuxuu ku yiri meeqaan kuu sheegay hanti aan adiga ahayn inaan lahayn wareedha hadda ka hor markii khilaafka khaliijku dhacay madaxda maamul goboleedyada waa kuwii dawladda ku feer ordi jiray hadda xiisadda ka taagan Kenya iyo Soomaaliya u dhaxaysa wax Kenya u sii ordaya ma arko marka nimayo ma la bislaaday mase waa la kala adkaada war hay ku nuugta hayse ku nuugta isan ma arjirne wa Kenya leeta beesa ee maylan garoore wariya dadku damiir bay yeesheen arya aniga dameerka xala iga dhintay ama aad ogtahay war mid dambana alla kuma siiyana dhageyso Soomaalidu marka xaalka xumaada ayada Soomaali isku ah dulmiguna waa mideeya waa maqlaysi Xasan Sheekh iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur inay yiraahdeen dawladdan ku barbar taaganahay mowqifka ay ka qaadatay Kenya khilaafkeeda war adeera Soomaaliland warka idin lama qabto arqowdan Soomaali ka dhig waa kaas Soomaalidu isku tawaadigi lahay war gowdhan kasan argaasan kalanna korma ka tirsan aryaadaha anigu weligay waxaanan arkin qowdhan oo nugu maana warnimo gabay xalo dhan ku soo dhafriyaa dhiman qof basbaas indhaha looga shubay waa iska cararaayeen shaaxna baraf ninkii loogu daray waa ku dhididaaye Soomaalina yar iyo weyn ninkii dhab u heshiisiya waxaan ugu ducaynaba guryuhu waa cayilayaan intaasaan ku soo koobaya yaan sii badin qalamada laga qaad ma waxa soo xalo dhan ku dhafrsana war laga intaasaan ku soo koobaya yaanan sii badin wariyaan odagaan gafuurka ka dila maalin kasta gaba ku dheela ilaahay haydan ilaaliye